السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض عوضي الكسر وهذا برنامج كنا فلان عيارها قضبضة ينسوق عندنا برنامج كنا عيارها ما توحاكم إذا iyadoo saacado yaro kooban ay ka harsan yihiin xilliga uu baasmi lahaa ciyaarta kama dambayska ee finalka koobka Euraha 2024 iyo ciyaarta kama dambaysta ee finalka Copa America 2024 haddii aynu eegno maanta xulalka iskaga hor imaan doona koobka Euraha waxa ay kala yihiin labada xul ee xulka qaranka Isbaanishka iyo xulka qaranka saddexda libaax ama lagu magacaabo xulka qaranka England kuwaas oo ay kala hogaaminayaan labada ciyaaryahan ee Lamine Yamal iyo laacibka Jude Bellingham ugu dambeyn weeraryahanku waa uu joogaa bartii uu rabay maanta oo ay taariikhdu tahay 14 bisha 7 2024 oo ay ku beegan tahay xilliga la ciyaarayo kama dambaysta tartanka Euraha taasoo la isugu soo baxeen xulka qaranka England iyo Isbaanishka maalmo hanjabaad iyo cagajugleen la isku marinayay hawada maanta waxay joogtaa fardo la isku hayo maxaa la iskaga faanaa Isbaanishku waxay ku soo durduriyeen oonay soo dhaafeen xulalka qaranka Germany iyo xulka qaranka France taas oo loo hanweynaa lana filayay inay ku guuleysan karaan tartanka Yurub ee Euraha 2024 geesta kale nasiibku ma sahlana waxa halka la yiraahdo kubadda cagtu waa barcad iyo bar madow xulka qaranka England waxay ka soo baxeen ama ay soo dhaafeen xulalka qaranka Switzerland iyo Holland oo ay guul ka gaareen daqiiqadihii ugu dambeeyay ee daqiiqadii 9aad kaas oo goolka ka keenay xidiga Watkins oo ahaa ciyaaryahan fadhiyay kursiga kaydka ahaana mid aan la dooran waqti badan balse daqiiqadihii ugu dambeeyay oo uu arkay tababaraha xulka qaranka England Southgate inuu ku habboon yahay in uu garoonka ciyaartoyga keeno noqdayna mid uu doortay haddaba haddii aynu eegno tiraba 2 jeer ayay kulmeen labada xul iyadoo taariikhdu ay ahayd sanadihii 1980kii oo isugu yimaadeen marxaladda group stageska balse laba iyo hal ay ku adkaatay xulka qaranka England halka markii labaad ay ahayd sanadii 1996 markaas ay iskugu yimaadeen marxaladda wareegga 8 dhamaadka taas oo ay England ugu gudubtay wareegga afraad ee afar dhamaadka kadib rikooryaal ku soo dhamaaday 4-2 gool marka laga yimaado labada kulan ee ay badiyeen xulka England haddana Isbaanishku waxa uu ka wataa isaga quud ahaantiisu dabyar ma shidayo haddaba haddii markaynu eegno iskoorada laga diiwaan geliyay labadan xul waxa kamid ah marka laga yimaado labada kulan ee ay badiyeen xulka qaranka England haddana Isbaanishku waxa uu haystaa 14 kulan ee ugu dambeeyay ee ay sarkaan xulka qaranka England inuu Isbaanishku qasaaray kaliya 4 kulan oo kaliya halka ay badiyeen 10 kulan halkan dabyar ma shiday xulka qaranka Isbaanishku 14 kulan ay kulmeen xulka qaranka England taariikh ahaan 4 kulan kaliya ayaa uu qasaaray 10 kulan waa uu ka badiyay xulka haddaba haddii aynu eegno xulka qaranka England waxa uu haystaa guulo badan maadaama oo laga qiyaas qaadanayo kulamadii ugu dambeeyay ee isugu yimaadaan kaasoo kulankii ugu dambeeyay ay xulka England kaga adkaatay 3-2 taasoo ay taariikhdu ahayd 2018kii oo ay isugu yimaadeen koobka lagu magacaabo Financial League Isbaanishku waxay badiyeen 3 final ee ugu dambeeyay ay yimaadaan tartamada qaramada qaaradaha kaasoo taariikhdu ay ahayd 2008 2012 kaasoo markii ay ahayd xilqigii ay qaadayeen koobka adduunka kaasoo lagu qabtay wadanka South Africa
tababare Luis de Lafuente isagoo waraysi bixiyay waxa uu sheegay in waqtiga dheeraadka ah ee laga joojiyo tartanka uu ahaa go'aan saxan isla markaana ay noqonayso go'aan la adeegsan doono sanadaha soo socda. Isku cartamida ay isku cartamayaan da'yarta iyo xidigaha qaranka ee Lamine Yamal iyo xidiga saddexda libaax ee Jude Bellingham. Walow Bellingham uu yahay xidig ka weyn ciyaaryahanka Lamine Yamal da ahaan, laakiin Lamine Yamal waxaa lagu qiimeynayaa waxqabadkiisa oo noqonaya mid aad u sareeya iyada oo laga qiyaas qaadanayo kulamadii u dambeeyay ee uu soo ciyaaray. daawadayaal, haddii aynu eegno qodobkeena xiga barnaamijkeena maanta, iyadoo saacadaha soo socda uu isna baasmi doono koobka America ama loo yaqaano Copa America, halkaas oo isugu hor imaan doonaan labada xul ee xulka qaranka Argentina kaas oo uu hogaaminayo Lionel Messi iyo xulka qaranka dalka Colombia oo kaas oo uu hogaaminayo isna xulka qaranka Luis Diaz. haddaba haddii aynu eegno kulamadii ugu dambeeyay ee ay labadan xul kulmaan, xulka qaranka Argentina ayaa waxa ay ka haysataa 2 guul kulamadii ugu dambeeyay ee ay wada ciyaaraan xulka qaranka Colombia. taariikhaha cusub ee Messi ama rikoodhada cusub ee Messi uu ka sameynayo tartanka Copa America waxaa ka mid ah, maadaama uu maanta ciyaarayo ciyaartiisii ama finalkiisii 6aad ee Copa America, laakiin waxa kaliya oo uu ku guuleystay 1 koob oo kaliya 6 final oo uu ciyaaray. haddaba maanta warbaahinta dalka Ingiriisku waxay qorayaan ama ay sheegayaan tijaabooyin badan oo laga sameeyay ciyaarta maanta finalka Euraha ee dhex maraysa xulka qaranka Isbaanishka iyo xulka qaranka England, iyadoo waraysiyo laga qaaday dadweynaha ayaa waxyaabaha ay sheegeen in ama loo badinayo in xulka qaranka Isbaanishku uu ku guuleysan doono maanta koobka Euraha lana aadi doonin extra time oo ay si nadiif ah u badin doonaan xulka qaranka Isbaanishka. haddaba tijaabooyin badan oo lagu sameeyay supercomputer maanta ayaa waxay sheegayaan in supercomputer uu saadaaliyay in xulka qaranka Isbaanishku uu ku guuleysan doono ciyaarta 90 daqiiqo oo ugu horeeyaba goolal 2 gool iyo 1 ah kana badin doono xulka qaranka England. haddaba khabiirka falanqeeyaha weyn ee Alan Shearer ayaa waxa laga weydiiyay kulamada caawa qabsoomi doona, ayaa waxa uu sheegay in si nadiif ah looga badin doono xulka qaranka England ayna badin doonaan xulka qaranka Isbaanishka. waxa uu sheegay haddii uu xulka qaranka England koobka Euraha uu qaado in ay ka dhigan tahay kooxda Sunderland ee ka ciyaarta liiga 2 ee wadanka England oo intay timid Premier League ku guuleysatay, taasoo macnaheedu ay ka dhigan tahay in aanay macquul ahayn. haddaba waynu eegi doonaa saacado yar kadib oo uu baasmi doono koobka Euraha. daawadayaal, adiga maxay kula tahay? fadlan hoos nagu soo qor jawaabtaada. mahadsanidin.